inkastoo dilkani saacado ka hor uu dhacay xogta dilkani sababta loo dilay cid disho aan la ogaan karin laakiin waxa soo baxay warar hoos oo sheegaya xildhibaankan la dilay inay saaxiib dhow ahaayeen cabdinaasir muuse dahable isbuucan gudihiisa lagu dilay magaalada muqdisho xogtu waxay sheegaysaa inkastoo la xaqiijin karin sababta loo dilay xildhibaankan inay tahay inuu wax ka ogaa cidda dishay sababta loo dilay cabdinaasir muuse dahable siyaasiyiinta sheegtay inay xamar ku matalaan Somaliland intay qotaan godod ha isku aasan sababtoo ah xildhibaanadii jararweyne meel ay ka dhigayeen xariga loo geystay shoogow ayay ka aamuseen waa siyaasiyiinta sheegta Somaliland inay ku matalaan xamare dilka loo geysto hal doorkooda kula nool xamar ninka la jaabay sheego anaka jarnaalkayna way hala soo baxbal jaraar wayne jarnaalkayna la jaabay hala soo baxbal markii laga yimaado tuhunka la tuhunsan yahay dilkan dhacay inay ka dambeeyaan xasan sheekh kooxdiisa waxa kale oo jira war kale soo baxay oo sheegaya dilkan inay ka dambeeyaan kooxdii dilka hore ka geysan jirtay Laasacano ayna ka dambeeyaan kooxda farmaajo ay ahayd kooxdii bilowgii hore dagaal ka riday Laasacano ee deegaanada dhaca barigaasi gobolka Sool haddana ay ka faa'iideysanayaan xiisada u dhaxaysa Somaliland iyo Soomaaliya ayagoo raba inay isku dhuftaan beelaha hawiye iyo isaaq waa sida xogta labaad ay sheegayso saacadii ugu dambeysay social media qaybta ka isticmaalaan Soomaalida waxa ku faafay muuqaalkan hadda idin muuqda siliidani muuqaalkani waxay la xiriiraan dhaqan xumadii qoomuluudnimada ee ka dhacday Boosaaso kulli aniga afkii ma soo dhaafi karaan qof iga af adag ku fahansiya muuqaalkan siliidani raadso bismillaah saaxiibayaal marka hore soo dhawaada marka xigta muuqaalkan fogeeyso meel fog garo daqiiqadaha halkan aan ka muuqdo waxaan ku soo gudbin doonaa halkii ku dambeeyay meedkii marxuumka ay dileen kooxda Xasan Sheekh iyo sababta la aaminsan yihiin siyaasiyiinta sheegta inay ka soo jeedaan Somaliland kuwaas oo ku sugan xamar waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka maamulka hawada sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonaa heshiiskii maalgashiga ee dhexmara Somaliland iyo Itoobiya oo ku sii saqaya hargeysa gabagaba ah taageerana ka helay midowga Yurub iyo midowga Afrika balse marka hore aan ku hormaro Boosaaso waa ka soo bariyay deegaanada Puntland waxa ka soo yeeraysa dhaqan foolxun oo ku cusub dhaqanka Soomaalida kol hore ayay ahayd markii deegaanada Puntland dil iyo kufsi isugu daray wiil yar oo 12 jir ah dhowr cisho ka horna gorow waxa ka dhacay fal kale wax shinimo ah kadib markii koox rag ah ay kufsi u geysteen gabar yar oo 13 jir ah shalay ugu dambeysay Boosaaso waxa ka dhacay dhacdo dadku ay la yaabeen wixii halkaas ka dhacay afkayga ma soo mari karaan laakiin eray ahaan waxa ku soo koobi karaa oo wixii halkaas ka dhacay inay ahaayeen qoomuluudnimo markii laga hadlayo deegaan Soomaalida Puntland waxa lagu sheegay inay tahay meelaha ugu badan ee ka dhacaan falalka noocan oo kale qoomuluudnimada sidoo kale Puntland waxa lagu sheegay inay tahay meelaha ugu badan ee ka dhacaan tacaadiga loo geysto carruurta daadoodu ay ka tahay 15 sano waxaasna maahan waxa aanu iska yiri oo warbixino soo saaray hay'ad markaasi ka shaqeeya Puntland iyo deegaanada kale Soomaalida ee deegaan saacadii ugu dambeysay social media qaybta ka isticmaalaan Soomaalida waxa ku faafay muuqaalkan hadda idin muuqda siliidani muuqaalkani waxay la xiriiraan dhaqan xumadii qoomuluudnimada ee ka dhacday Boosaaso kulli aniga afkii ma soo dhaafi karaan qof iga af adag ku fahansiya muuqaalkan siliidani raadso markaana Muqdisho xamar maanta waxa lagu dilay xildhibaan hore Axmed Aadan oo ka soo jeeda Somaliland gaar ahaan beesha Arab oo shaqsiga labaad ka soo jeeda Somaliland isbuucan gudihiisa lagu dilo magaalada Muqdisho markii la ogaa qaabka loo dilay xildhibaankan hore magaciisa la yiraahdo Axmed Aadan waxay u muuqataa dilkiisa xildhibaankan inay ka dambeeyaan kooxdii hore u dishay Cabdinaasir Muuse Dahable meedka xildhibaankan hore waxa laga helay guriga ka deganaa magaalada Muqdisho kaasoo ku yaala Xamarweyne inkastoo dilkani saacado ka hor uu dhacay xogta dilkani sababta loo dilay cid disho aan la ogaan karin laakiin waxa soo baxay warar hoos oo sheegaya xildhibaankan la dilay inay saaxiib dhow ahaayeen Cabdinaasir Muuse Dahable isbuucan gudihiisa lagu dilay magaalada Muqdisho xogtu waxay sheegaysaa inkastoo la xaqiijin karin sababta loo dilay xildhibaankan inay tahay inuu wax ka ogaa cidda dishay sababta loo dilay Cabdinaasir Muuse Dahable tani markii Somaliland iyo Itoobiya dhexmaray heshiiska hor dhacay maalgashiga biyaha badda Somaliland waxay soo taraysaa hanjabaadaha loo diraayo Somaliland hanjabaadahaas waxa xigay beegsi la beegsanayo dadka markaas ka soo jeeda Somaliland balse ku sugan xamar oo markaas taageersan go'aamada ka soo baxay Somaliland ee maalgashiga biyaha badda Somaliland waxay u muuqataa xamar inay ka bilaabato beegsi la beegsanayo qof walba waxtar leh oo ka soo jeeda Somaliland sidii dhacday 90kiiba markii laga yimaado tuhunka la tuhunsan yahay dilkan dhacay inay ka dambeeyaan Xasan Sheekh kooxdiisa waxa kale oo jira war kale soo baxay oo sheegaya dilkan inay ka dambeeyaan kooxdii dilka hore ka geysan jirtay Laasacano ayna ka dambeeyaan kooxda farmaajo ay ahayd kooxdii bilowgii hore dagaal ka riday Laasacano ee deegaanada dhaca barigaasi gobolka Sool haddana ay ka faa'iideysanayaan xiisada u dhaxaysa Somaliland iyo Soomaaliya ayagoo raba inay isku dhuftaan beelaha hawiye iyo isaaq waa sida xogta labaad ay sheegayso cidii doonta ka dambeeyay dilkan hadda ka bilaabma xamar laakiin markana kale xaalku markuu sidaan noqdo oo laga agbadashaa koobtaas oo kale qof walba naftiisa jecel xamar hasaga tago ilaa hadda dilka xamar loogu geysanayo shaqsiyaad ka soo jeeda Somaliland kama aysan hadleen siyaasiyiinta sheegay jiray inay ku matalaan xamar Somaliland waxay la aaminsan yihiin miya baqanayaan mise ujeedkii markii hore u tagaan ba siyaasiyiintaas waxay hayeen xamar inay ka shaqeystaan lacagna ay ka tabcadaan
sabab kasta uga aamusaan siyaasiyiinta sheegtay in xamar ku matalaan Somaliland intay qotaan godod ha isku aasan sababtoo ah xildhibaanadii Jarweyne meel ay ka dhigayeen xariga loo geystay Shogow ayay ka aamuseen waa siyaasiyiinta sheegta Somaliland ku matalaan xamar dilka loo geystay hal doorkooda kula nool xamar